ولا هرت بنام بحث واحد كتير ما لهن كوده واسك قايلي نين غريغيس كجيرو او قايلي مو xumo haddii oo xasan sheekh oo saan la ku wado oo shacabku saan ku wado oo guri dumiski iyo wax kasta jiro marka halkan sidan hadis wax kale ku darsado waa dhibaato waxaad ku soo dhawaataa Axmed Deeqsi iyo waliba janalka Shumac TV adigoo ku bilaabay magacaaga waa ku dhawahay aad iyo aad u mahadsantiin magacayga waa hodan xuseen siico waan ku dhawahay aad iyo aad u mahadsantaa hodan maalmahan magaalada Muqdisho waxa bilowday sanadka la guura marka mucaaradka Soomaaliya waxa ay markaasi rabaan in maarta doorashada ay dhacdo doorashadan waxa lagu diraa hal sano marka sidee macnaha maarta u aragtaa halka sano oo maarta baarlamaanka ay ku dareen doorashada oo madaxweynaha wuxuu sheegay in 2027 ay markaasi dawladda sameyn doonto doorasho inta ka sokeysana ay maaragtay dawladda si shaqeynayso dhanka kale mucaaradka waxa ay ku baaqeen banaanbax sidee u aragtaa banaanbaxaasi wala horta banaanbaxaas wax ka jira ma lahan kooda waa iska qaqayliya nin gurigiisa ku jiro oo qaqayli muu xumo marka waxa leeyahay iska qaqayli iiga iyo ninka hadda oo YouTube leed oo imaada YouTube leed ka saameyn badan ninka oo ay dalahay oo hadda imaada ka saameyn badan marka laba qof iska qaqaylisa mu joojinayno marka waxa leenahay waxa noo balan 2027 marka adiga waxa kamid tahay dadka markaasi taageersan dawladda Soomaaliya marka taageerahaasi maxuu ku yimid asleeda maxaa ku taageersantaa dawladda waxa ku taageersana horta muhiimada ugu koowaad waxay tahay inuu amni yahay wadanka amni 8 saac habeenimo habeen waxa arka badan liida anoo joogo 8 saac habeenimo waligeena marka xaafadka soo baxeen oo soo dardaarmi jirnay waxa dhigi jirnay waa baxoona maanta bakaara u soconaaye deena liigu leeyahay liiga dhiibo iyo saan aadii jirna maanta ama ilaahay ka soo horta waxa ma had iskala mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa leeyahay inta cimriga ka jirta ee nafta kugu jirto xilka hay okay marka maadaama aad tahay muwaadinad Soomaaliyeed maxaa ugu baaqi lahayd mucaarad ma jiro dalkaanay hal meel oo u socdaa hal dhinac oo u socdaa waxa leeyahay mucaarad ma jire madaxweyniina taageera ummadda buuq iyo qaylada fiir nin oo dibad ilmihiisa geesta waxa ku dhaasoo baxa sabaxa ani ad ilmaha dibadda geesta ana banaabaxay miya yaa xabad lagu ridaa ma jirto waxaas marka waxa rabtaa dalkaaga inaad u noolaato dalkayga inaad u noolaado nabad wax nabad baa naas lagu galaalnaa moodtahay okay ugu dambeyn marka shacabka Soomaaliyeed ee ku daawanayo Shumac TV ka daawanayo maxaa ayagana dhihi lahayd asxaabta maxaa oo Shumac TV ga daawanayo waxa leeyahay dawladda taageera muhiimadda waxa lahayd mataqaana dawladdu waxay ku dhistaa shacabkeeda shacabka waxa ka codsanaa inay dawladda taageerto dawladdan tiira u nahna moogta anaga hadaa taageerno يعني ودن كنا ودسما ودن والبقروح بدن شعبه قروح بدنيسي ما هو marka shacabka isku tiirsanaado hal dhinac naqdo madaxweynaha nimada ka codsana calamadan inuu soo afjaro oo hal calan leeyahay dadka dhan ay u jiheystaan hirshabeele iyo galmudug iyo waxaas inuu soo afjaraan calanka Soomaaliya kaasana deeqo kaasana ga badan waxa ku soo dhawaataa Axmed Deeqsi iyo waliba janaalka Shumac TV adigoo ku bilaabay magacaaga ودوّا مية عبد القادر أحمد محمد قرشوغال aad عبد القادر maalmihii la soo dhaafay waxa markaasi dhamaaday xilka dawladda Soomaaliya waxa ay ku darsatay hal sano oo maaragtay extra ah mucaaradkana waxa ay ka soo horjeedaan halkaas sano oo maaragtay baarlamaanka iyo maaragtay golaha shacabka ay ku dareen marka adi ahaan sidee u aragtaa in dawladda hal sano loogu daro anisa waxa uu arkay hal sano in loogu daro haduu wax ku saxayo ma sha Allah wala raacsana معارضكم إيه ودتك ولا لي مساكينتا قلنا ومعناه فيرشو معارض أركما هدي ولا لي دتك موادنك وكل حلو معارض فرب ذنب وأركان هل كسر أنا حاجة على كون سنة إنه لو قولي سيد محمد زياد برو كله وأتاجنا أنا يعني كم عاسيان لكن هدي مساكين ولا له من مسلم ودرس دي عنه جيفو محاسو مالك أنا ونين قال إنه حركينا marka waxa taageersan tahay in maaragtay madaxweynaha intuu sano oo rabo loogu daro okay marka mucaaradka Soomaaliya waxay ku maaragtay dhawaaqeen in banaanbax la sameeyo shacabkana isku soo baxaan waliba 4 bisha soo socoto adiga ma kamid tahay dadka banaanbixi doono aniga dadka banaanbixi doono waan ka ahay dawladda ka soo horjeedo dawladda waa la raacsanahay kama soo horjeedo banaanbaxaas marka ma taageersan tahay banaanbaxaas ani dooda ka qaba ma taageersan sax madaxweynaha waxa kaliya taageersan inuu wax toosiyo marka habka hadda dawladda Soomaaliya ku socoto amniga magaalada Muqdisho ka jiro sidee u aragtaa waxaan u arkaa sagalaaf qaab daro iska jira sideeda kale habi wa toosantay amniga okay dawladda Soomaaliya marka maxaa ugu baaqaysaa oo asleeda waxaas hadii la sixlaa dawladda wax fiican ay markaas shacabkeedu u qaban lahayd waxaan u sixlaa waan dhilaa mar walba guul iyo horumar inay arkaysa gaariso
صح oo wixii mucaaradna ka leexanayaan oo la isjeclaanayo Soomaali midooda hal naqanayaan waran waxa ku soo dhawaataa Axmed Deeqsi Cusmaan iyo janaalka Shumac TV adigoo ku bilaabay magacaaga waa Maxamed Axmed Cabdulwaahid Maxamed Axmed Cabdulaahi waxaa dhamaaday xilhaynta dawladda Soomaaliya balse shacabka iyo golaha shacabka waxay ku dareen hal sano oo maaragtay extension ah sidee u aragtaa halkaas sano ee dawladdu ku darsatay wallahi halkaas sano haddii oo xasan sheekh oo saan la ku wado oo shacabku saan ku wado oo guri dumuskii iyo wax kasta jiro marka halkaan sidan haddii wax kale ku darsado waa dhibaato ay markaas shacabka dhibaato u yahay dhulkan dhibaato u yahay markaas usan dhibaato u yahay marka isfahanka wax karo ma lahan shacabki marka adig ahaan waxa ka soo horjeedaa in madaxweynaha uu ku darsado hal sano marka waxa waaye haddii isku darsado waa shacabkii waa dhibaato waa arki shaqadii yaa xiiq dadkii lacag wataan haddana haddii oo dad u shaqaynayaan yani shaqaalaha uu joogaan mu dhaweynayaan marka adiga sababta ugu soo horjeedid in maaragtay hal sano uu ku darsado madaxweynaha iyo dawladdiisaba waxa waaye in maaragtay dawladda ay sameysay burburin iyo maaragtay dhibaateyn shacab oo markaas aad leedahay haddii madaxweynaha uu rabo inuu sii joogo waa inuu dhaafaa dhibaatooyinka iyo burburinta markaas lagu haayo shacabka haddii us xasan sheekh ilaaho hal sano leh ma lagu darno haddii rabna haddii isfahanka laga helo 5 sano lagu daraa haddii rawan tool xayaat sano naqana laakiin waxa way dhibaatada la dhib keenay okay marka mucaaradka waxa ay ku dhawaaqeen in macnaha maaragtay banaanbax looga soo horjeedo ku darsashada halka sano ay markaas sameyn doonaan 4 bisha adiga ma kamid noqon doontaa dadka banaanbaxaya mase waxa taageersan tahay in dawladda ay joogto balse ay dhaafto burburinta marka ana banaanbax wiligay ma aadan dadkii aadan ma ihi meel banaanbax lagu baxan waa meel dhaawac lagu naqday oo balaayo ku dhacday oo shaydaan imaadi oo khayr laga waay marka banaanbaxan waxa ka fiican inta oo sidii oo dawladda lagu qanacsiilahay inta oo burburkan dhaafto oo wadan oo dadka shacabkii iyo madaxweynaha isfahmaan oo isgacan isku qabtaan wixii masaakiin oo wax u taraan wixii maanta dib wadaan qabtaan marka saas isfahanka wax karoon ma jirto maanta okay marka waxaan rabaa inaad dawladana maaragtay aad tiraahdo saas hal yeelo mucaaradkana aad tiraahdo saas yeelo banaa fikirkaaga adiga labada dhinacba marka dawladda waxaan ku codsanaynaa unigi shacabkii iyo wixii ahaay wixii dumuska inaan dhaafto marka shacabka Soomaali maanta haddii gurigiisa lagu dumiyo ani ahaado haddii aad waxa u wadeen waa ma inta ko guriga laga dumi inta wajiga aadinay meeshii aadinaysa aad ma ogtimaano haddii us xataa dumi laha oo wax maanta oo meel kale hadis meeshaan rabo oo meel kale ku sameey laha xataa beela ahalay laakiin inta la dumiyo oo saan lagu dhaafo oo shacabkiina oo maanta fool xumadiis ma arag karno okay mucaaradkana maxaa leedahay mucaaradkan waxaa leenahay mucaarado isfahanka wax karoon ma lahan makasti marka shacabkeen inta oo gacan u qabano oo maanta oo horumar gaan Soomaali inta horumar gaarto marabto Soomaali hadii horumar gaar leh mar hore gaar leh Soomaali makasno hadda wadan kasta ana had Yemen ku dhashtay Yemen ku soo barbaar Soomaali dhan loo sana jooga wana Soomaali ahay makasti meel kasta tagto Soomaali waa nacbinay maxaa lagu nacbinay la isfahanka diideen ma isfahamaan fiir hadda qabiil waa isdagaalaan meesha burbur marka mucaaradiinka waxa dhahlaayaan inta oo waxaan dhaafaan oo ma banaanbaxgaan marka banaanbaxadii la sameeyay ilmo badan baaba'ayaan dhagax tuuro bilaabay askara dhamaanay shacaba dhimanay marka waxa banaanbax dhihilaay ina dawladda oo banaanbaxgaan iyo waxaas dhan dawladdan oo isqabato banaanbaxgaan iyo kan ajoogaan oo xasan sheekhna waxa dhahleena xasan sheekhow haddii maanta aad guri haddii oo xataa haddii meeshaan dhul dawlad waa dhehayso shacabka maanta haddii aad wax xumaad ku samaysa dhib u qabaa manaa shacabka waxaa leedahay haloo sameeyo dib u dejin mucaaradkana waxaa leedahay ha joojiyaano banaanbax diyaar uma nihin aad iyo aad waa mahadsantahay